daawadayaal kusoo dhawaada saxafi filmis oo uga barateen taariikhaha aktarada caanka ee filimada ka jira shirkadda Bollywood-ka ee dalkaasi Hindiya. Barnaamijkan waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa aktarka caanka ee Amir Khan oo loo yaqaano Master Perfectionist. daawadayaal superstarkan Amir Khan magaciisa dhabta ah waa Maxamed Amir Hussein Khan. waxa uu dhashay 14 Maarso sanadku markuu ahaa 1965. Amir Khan waa actor Hindiya, director kharash gareeya sidoo kalena soo bandhiga barnaamijyada TV-yada dalkaasi Hindiya ka baxa. Khan intuu fanka ku jiray waxa uu ku guuleystay inuu ka mid noqdo shakhsiyaadka ugu saameynta badan fanka Hindiya, waxa uuna ku guuleystay abaalmarino badan oo ay ka mid yihiin 4 National Film Awards, 7 Filmfare Awards, sidoo kalena dawladda Hindiya waxa ay siisay 2 biladood ee muwaadinka maqaamka sare dalka ku leh la siiyo Padma Shri oo la siiyay 2003 iyo Padma Bhushan oo la siiyay sanadkii 2010. Amir Khan oo ku caan baxay Master Perfectionist waa jilaa aan filimo badan sameynin balse dhigay rikoor taariikhi dhanka box office waana actoraha kaliya ee mar walba rikoor cusub Bollywood-ka ku soo kordhiyo dhanka filimada. Amir Khan haddaynu taariikhdiisa hore wax ka taabanno, Amir Khan waxa uu ku dhashay magaalada Mumbai 14 Maarso 1965. waxa aaba u ah Tamir Hussain oo ahaa filim kharash gareeye halka hooyadiis lagu magacaabo Zeenat Hussain. Amir Khan qaraabadiisa ay aad ka isugu dhowiyeen ee fanka ka shaqeeya waxaa ka mid ah adeerkiis Nasir Hussain, waa filim sameeye iyo kharash gareeye, halka filosoferka weyn ee Abdul Kalam Azad ay ayaydiis qaraabo dhow yihiin. Amir Khan waa curudka qoys 4 qofood ka kooban. walaalkiis waxaa lagu magacaabaa Faisal Khan, halka 2 gabdhood ee la dhashay lagu kala magacaabo Farxad iyo Nikhat Khan. sidoo kale Amir Khan wuxuu abtuu yahay Imran Khan oo haatan filimo badan sameeya kana mid ah jilayaasha Bollywood-ka. Amir Khan isagoo aad u dhalinyar ayuu Bollywood-ka ku lug yeeshay, waayo markii uu 8 sano jiray ayuu wuxuu muuqaal ku yeeshay filimkii Yaadoonki Bharat oo la dhigay sanadku markuu ahaa 1973, waxaana filimkan iska lahaa adeerkiis Nasir Hussain. sidoo kalena Amir hees caana oo filimkaas ku jirtay ayuu wax ka qaaday oo wuxuu ka mid ahaa dadkii heesta ku luqeynayay. isla sanadkii xigay sanadku markuu ahaa 1974, Amir Khan waxa uu matalay doorka Mahendra Sandhu oo wiil yar oo filimka Madhosh ee aabihiis kharash gareeyay ku jiray ayuu ku matalay. Khan kadib waxa uu galay iskoolkii GP Betty si uu waxbarashadiisa hoose u dhameystirto, kadibna waxa uu ku biiray ST Annis High School ee ku yaala magaalada Bandra, waxa uuna ku dhameystay ilaa fasalkii 8. sidoo kalena waxa uu fasalka 9 ilaa 10 ku dhameystay Mumbai Scottish School ee ku yaala xaafadda Mahim. Amir Khan waxa uu ciyaari jiray tenniska isaga oo tartamada iskoolada kaga qayb gali jiray, waxaana la sheegay inuu xirfadda ciyaartaasi aad ugu wanaagsan yahay marka loo barbar dhigo sida uu waxbarashada ku ahaa. nasiib wanaag fasalkii 12aad waxa uu ku dhameystay Nasri Moji College ee ku yaala magaalada Mumbai kadib juhdi badan ee uu xidigan bixiyay. Amir Khan ayaa noloshiisa yaraantiisa ku tilmaamay mid aad u badneed maadaama aabihiis dhibaato dhaqaale ka haysatay, maadaama filimada uu kharash gareeyay intooda badani ay guul dareysteen. Amir oo arrinkan ka hadlaya wuxuu yiri maalin walba 30 taleefan ayaa loo soo diri jiray, waxayna ahaayeen dad dayma ku lahaa aaba, sidoo kalena rabeen inay lacagahoodii la siiyo. Amir ayaa si dhib badan waxbarashada ku dhameystay maadaama mar walba lacagaha iskuulka la weydiin jiray, mararka qaarna iskuulka laga raacdin jiray lacag la'aan awgeed. Amir isagoo 16 sano jira waxa uu ka qayb qaatay filimka tijaabada ahaa, wuxuuna soconayay 40 daqiiqo, waxaana la dhahaa Bornajana, waxaana filimkan kooban sameeyay saaxiibadiis oo ay isku lahaayeen jireen Aditya Bhattacharya. waxaana filimkan maalgeliyay filim sameeyaha caanka ah xilligaas ee Shriram Lagu, wuxuuna siiyay xoogaa kumanaan rubisa. Khan waalidkiis ayaa ka hor imaadeen inuu filim jilista ku biiro maadaama ay iyagu dhibaato dhaqaale kala kulmeen, waxayna rabeen in wiilkooda injineer ama dhakhtar uu noqdo. sidaa daraadeed sidii uu rabay uma uusan jilin filimkii Baron Rai, balse Amir ayaa sheegay in filimkan uu waayo aragnimo ka helay kuna dhiirigeliyay inuu fanka meel sare ka gaaro. Khan si dhaqso ah waxa uu ugu biiray koox tiyaatarada kusoo bandhigta filimada oo lagu magacaabo Avatar, wuxuuna ka tirsanaa muddo sanadaha kadibna riwaayada kooban ayuu la jilay. Khan markii uu waxbarashadiisii sare dhameystay waxa uu go'aan ku gaaray inuu gabi ahaanba waxbarashada joojiyo, inkastoo waalidkiis ay arrintaas ka hor yimaadeen oo cadaadis badan ku saareen inuu waxbarashada sii wato.
wuxuuna xidigan caawinaad ka helay adeerkiis Naasir Xuseen isagoo director caawiye kaga dhigay labadii si filin ee manzil oo 84 soo baxay iyo Zabaradas ee 85 Amir Khan iyo sidii uu ku noqday atoore buuxa iyo qaabkii ugu soo biiray Bollywoodka kadib markii uu adeerkiis laba filin kala shaqeeyay sidoo kalena waxa uu wax ka jiray film documentary ah waxaana sameeyay ardaydii iskuulka ee FTI ee ku yaala magaalada Pune film sameeyay Ketan Mehta ayaa arkay doorkii uu ka qaatay Amir Khan filmka documentary-ga oo ardayda ay sameeyeen wuxuuna Amir Khan u soo jeediyay inuu door ku yeesho filmkiisii jacaylka ahaa ee Holi ee la dhigay sanadku markuu ahaa 1984 filimka Holi jilayaal badan oo fanka ku cusub ayaa wax ka jireen balse filmka ma guuleysan sidoo kalena Amir Khan lagama siinin door aad u muuqda balse adeerkiis Naasir Xuseen iyo wiilka uu dhalay ee Mansoor Khan ayaa kalsooni ku qabeen kartida Amir Khan waxayna atoore koowaad kaga dhigeen filmkii Qiyaama Tag ee soo baxay sanadku markuu ahaa 1988 sidoo kalena Juh Jalwa ayaa la jishay filimka Mansoor Khan ayaa director ka ahaa waana markii ugu horeysay ee film sameeyay waxaana sheeka ahaan laga soo minguuriyay riwaayad William Shakespeare iyo Romeo and Juliet qiyaamad markii la dhigay sanadku 1983 wuxuu noqday film caalami ah oo guul taariikhi gaaray sidoo kalena Amir Khan iyo Juh Jalwa waxay noqdeen laba xidig oo cirka galeen waxayna filimkan lagu qaatay 7 abaalmarin oo film awaarisa waxaana Khan lagu siiyay abaalmarintii jilaaga ku cusbaa fanka midkii ugu wanaagsan sanadkii 1989 Qiyaama Tag 1998 la dhigay ilaa haatan waa film kalaasiga oo aan marnaba la iloobi karin sidoo kalena qalbiga shacabka aad u soo wada jiisay gudaha iyo dibadda sanadku markuu ahaa 1989 Amir Khan waxa uu soo baxay filimkiisa Raakh ee uu ka hadlayay dhibaatada dambiyada waxaana sameeyay Aditya Bhattacharya waa wiilka Amir Khan ay isku iskoolka ahaan jireen Raakh waxa la duubay ka hor inta aan Qiyaama Tag la sameeynin inkastoo filimkan uu guul dareystay haddana sheeko ahaan si weyn ayaa loo amaanay wuxuuna Khan ku mutaystay abaalmarinta National Film Awards waliba bilad qaas ah ayaa guddiga siiyeen maadaama jilinkiisa la cajabay National Film Award Special Jury Awards ayaa u qaatay isla dhamaadkii sanadkii 1989 Amir Khan iyo Juh Jalwa ayaa ku midoobay filimkoodii labaad Love balse filimkan si weyn ayaa loogu qasaaray sanadkii 1990 Amir Khan waxa uu soo baxay 5 film balse filimada kale ah awal number 2 Mera Ho Dewan Mujhe Sanihin iyo Jawani Zindabad dhamaantood waxa ay noqdeen kuwa guul dareystay balse filimkii dil ee uu iska lahaa Indira Kumar sidoo kalena Madhuri Dixit la jisay Amir Khan ayaa noqday filimkii ugu weynaa sanadkii 1990 sidoo kalena lacagaha ugu badan soo xereeyay kadib waxa uu xogay filimkii guusha dhexdhexaadka ahaa gaaray ee dil Haykii Mantanahin oo dhigay sanadku markuu ahaa 1991 waxaana la waday Bujabad waxaana filimkan sheeka ahaan lagu soo minguuriyay filimkii Hollywoodka ee lagu magacaabi jiray It Happened One Night ee la dhigay sanadku markuu ahaa 1934 wixii markaas ka dambeeyay wuxuu bilaabay inuu wajiyo kala duwan tijaabiyo sidoo kalena filimada uu amaanta ku mutaystay guulaha hana uu ku gaaray waxa kamid ahaa Jojita Wohi Sekandar oo dhigay 29 Hum Hain Rahi Pyar Kiya oo 93 ahaa iyo Rangela oo 95 dhigay sidoo kalena sanadkii 94 waxa uu soo baxay filimkii Andaz Abna ee Salman Khan ay isla jireen inkastoo bilowgii hore filimka film noqday haddana gadaal waxa uu ka helay aqoonsi caalami ah waxa uu noqday film kalaasiga Amir Khan iyo qaabkii uu guulaha waaweyn ku gaaray waxa uu si rasmi u hirgeliyay siyaasad inuu sanad walba hal film ama laba film sameeyo waxayna ahayd arrin Bollywoodka ku cusub xidigan sanadkii 96 waxa uu la yimid filimkii Raja Hindustani ee uu lahaa Dharmesh Darsan waxaana la jishay atirishada caanka ahayd ee Karishma Kapoor filimkan ayaa noqday all-time blockbuster sidoo kalena waxa uu noqday filimkii ugu weynaa ee uu Khan sameeyay sanadkii 1996 filimkaas ayaa noqday midkii ugu weynaa ee lagu sameeyo filim shirkadda filimada ee Bollywoodka Khan filimkan markii ugu horeysay ayuu atooro sanadka ee shirkadda Filmfare bixisa ku qaatay isagoo 7 jeer uu hore u tartamay balse aan ku guuleysan waxa uuna helay biladiisii koowaad markii uu dhigay filimka Raja Hindustani wixii waqtigaas ka dambeeyay Khan maqaam sare ayuu ku gaaray xagga jilinka waxa uuna shaqeeyay lacag aad u fara badan balse filimadiisii kuwa ku xigay ee Ishqiga 97 Qulaan 98 Sarfarosh 99 waxa ay gaareen guulo dhexdhexaad ah marka loo fiiriyo guushii taariikhiga ee Raja Hindustani gaaray Khan amaan ayuu ku mutaystay filimkii Earthy ee Diba Behta iska lahaa inkastoo uu flop ahaa balse qarniga cusbaa ee 2000 Khan waxa uu ku bilowday filimkiisii Meela isagana waxa uu noqday mid guul dareystay waxaana filimkaas la wada walaalkiis Faisal Khan
sanadkii 2001 Amir Khan darajo aan la gaari karin ayuu ku tallaabsaday maadaama filimkiisii Lagaan uu guul taariikhi ah gaaray sidoo kalena filimkan aqoonsi caalami ayuu helay Khan filimkan abaalmarinta Filmfare Award ayuu mar labaad ku qaatay sidoo kalena filimkaasi wuxuu kaalin fiican ka gaaray Oscarka Hollywoodka maadaama sheekadiisa si weyn loo amaanay dhammaadkii sanadkii 2001 Amir Khan waxa uu sameeyay filimkii Dil Jahte Hai waxa uuna gaaray guul iska dhexdhexaad ah Amir Khan muddo 4 sano ah ayuu Bollywoodka ka maqnaa wuxuu dib u soo laabtay sanadkii 2005 isagoo la yimid filimkii uu halgamaaga ku matalay Mangal Bandey The Rising balse filimkan hamigii laga qabay ma uusan gaarin wuxuuna noqday filim gaara guula iska dhexdhexaada oo inkastoo uu muddo dheer hawada ka maqnaa laakiin sanadkii 2006 ayuu Khan wacdara la yaabay dhigay waxaana uu ahayd markii ugu horeysay ee uu hal sano laba filim oo hid dhameystiran uu sameeyo Fanna oo super hit noqday iyo Ranga Dibasanti oo isaguna hit noqday doorka uu filimka Ranga Dibasanti ku jiray amaan badan ayuu ku muteystay sidoo kalena shirkadda Filmfare Awards waxa uu ku siisay abaalmarinta Fair Critics Awards for Best Actor Khan sanadkii 2007 waji cusub ayuu la yimid maadaama uu director ka noqday filimkii uu wax ka jilay Tare Zaman Ber wuxuuna filimkan gaaray guulo waaweyn isagoo noqday super hit Amir Khan iyo markii uu bilaabay sameynta filimada blockbusterka iyo qaabkii uu rikoodhada cusub ugu dhigay Bollywoodka sanadkii 2008 Khan waxa uu noqday aabaha Bollywoodka maadaama filimkiisii Gajini uu rikoodh cusub dhigay filimkaasi ayaa noqday filimkii ugu horeeyay ee 100 karoor gudaha Hindiya ka soo xoreeyay sidoo kalena blockbuster weyn ayuu noqday Khan dadka oo la yaabanaa wacdarihii uu dhigay sanadkii 2010 ayuu mar kale sanadkii 2009 sameeyay rikoodh taariikhi ah maadaama filimkiisii Three Idiots uu noqday filimkii ugu horeeyay ee 200 oo karoor gudaha Hindiya ka soo xoreeyay waxa uu noqday all time blockbuster sidoo kale filimkii Three Idiots waxa uu noqday mid caalami ah isagoo daafaha caalamka ka soo xoreeyay in ka badan 25 milyan oo dollarka Mareykanka Khan muddo 2 sano ka badan ma uusan sameyn filim uu ku leeyahay door dhameystiran waxa uu la yimid markii dambe filimkii Talash ee uu iska lahaa Rima Gagti balse filimkan guul dhexdhexaad ayuu gaaray Amir Khan sanadkii 2013 Bollywoodka si weyn ayuu uga yaabsamay maadaama filimkii Doom 3 uu dhigay rikoodh taariikhi ah waxa uuna soo xireeyay 262 karoor isagoo oo noqday all time blockbuster iyo filimka lacagaha ugu badan soo xireeyay oo ay abid Bollywood ka sameeyaan sidoo kalena guud ahaan daafaha caalamka iyo gudaha Hindiya waxa uu ka soo xireeyay filimkan 89 milyan oo dollarka Mareykanka Khan wuxuu caadaystay inuu mar walba rikoodh cusub dhigo sidaa daraaddeed sanadkii 2004 waxa uu dhigay rikoodhkii laga wada naxay loona dhawaan waayay ee ahaa waayo filimkii BK ayaa gudaha Hindiya ka soo xiriyay 340 karoor ilaa haatan waa laga yaaban yahay arrinka sidoo kalena filimka ilaa haatan waxa uu daafaha caalamka ka soo xiriyay 41 milyan halka gudaha iyo dibadda marka la isku daro uu sare u dhaafay lacagtiisu 121 milyan oo dollarka Mareykanka ah sanadku markuu ahaa 2015 waxa uu dhigay filimkii Diladu oo ay la wadeen Ranveer Singh Anil Kapoor iyo Priyanka Chopra iyo Farhan Akhtar filimkaasi asagu atoro koowaad ka muuqan ahayn balse sanadkii markuu ahaa 2016 waxa uu la yimid filimkiisii kale ee Dangal oo asna noqday filim all time blockbuster waxa uu soo xareeyay filimkaasi daafaha dunida oo dhan marka la isugu wada geeyo 110 milyan oo dollarka Mareykanka waa filimka kaga jira kaalinta labaad marka ay noqoto lacagaha la soo xoreeyo waxaana ka horeeya hal filim qura waana isla filimkiisa PK ee soo xareeyay 121 milyan oo dollarka Mareykanka 2017 waxa uu soo wadaa filimkiisa la yiraahdo Secret Superstar oo soo bixi doona isla sanadkan aan ku jirnay ee 2017 daawadayaal wali waxaynu bartanka kaga jirnaa taariikhda aktarka caanka loona dhawaan waayay rikoodhada xagga filimada kharashadka ka soo xarooday ee waa Amir Khan Superstar-kan Amir Khan isagoo oo aad u dhalinyar waxa ay jacayl wadeegeen kadib si qarsooday ay isku meersadeen Reena labada lamaane waxa ay isku dhaleen wiil iyo gabadh lagu kala magacaabo Junaad Khan iyo Ira Khan balse nasiib xumo muddo dheer oo ay isla noolaayeen sanadku markuu ahaa 2002 bishii December 9 ayay si rasmi ah u kala tageen Amir iyo xaaskiisa Reena Amir Khan maadaama xaaskiisa Reena uu furay waa nin xaasoo yeeshay xaas la'aan ma joogo kale waxa uu baahan yahay qof cunto u sameeyay waxa uu sanadkii 2005 guursaday oo uu nolosha ku soo biirtay Kiran Rao oo ay muddo badan arrimaha fanka ka wada shaqeynayeen labada lamaane muddo 10 sano ah ayay haatan wada nool yihiin waxaana u jooga wiil lagu magacaabo Azad Rao Khan Amir Khan dhanka shaqada fanka waxa uu saaxiib aad u dhow kala yahay oo ay isku shaqeeyaan oo warka ay isu sheegtaan saaxiibkii Salman Khan Juhi Jalwa iyo Rani Mukherjee
waxaanu saddexdan xidig u hayaa xushmad iyo wanaag iyo wada shaqayn aad u heer sareysa daawadayaal weli waxaynu ku jirnaa taariikhdii Amir Khan haddaynu wax ka taabano dhacdooyinkii gaarka u ahaa Amir Khan filimkiisii Fanna waxa uu kala kulmay kacdoon shacab iyo mudaharaadyo aad u badan balse arrintaasi waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya oo yiri qof walba xorriyad ayuu u leeyahay inuu fikirkiisa ku cabiro waaqica jira haddii qof uu arrin si gaar ah uga hadlo miyaad mudaharaadaysaan oo aad qaylinaysaan shacabka ayuu la hadlay arrintaasna waxaa hadliyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya haddaynu sii raacino dhacdooyinkiisii gaarka ahaa sanadku markuu ahaa 2013 xajka ayuu tagay isaga iyo hooyadiis Zeyna waana markii ugu horeysay oo uu soo xajiyo oo uu soo guto shanta arkaanul islaam midka uga harsanaa markii uu soo xajiyay waxa uu dhigay filimkiisii Doom 3 filimkaasi oo noqday all time blockbuster haddaynu dhacdooyinka Amir Khan baynu weli gudaha kaga jirnay haddaynu wax kala sii taabano xabad kale aanu sii raacino waqtiga oo nagu xiriiraya awoodiis daawadayaal waxaa dhacday in Amir Khan xaaskiisa ay mar ka hadashay xaaladda ay ku sugan tahay iyo nolosha dalkaasi Hindiya iyada oo sheegtay inay cabsi weyn dareemayso xaaladda dalkaasi Hindiya ay aad u sii kacsan tahay oo ay baqdin badani kala kulanto joogitaanka inta ay guriga ku sugan tahay wiilkeeda yarna ay u baqdo arrintaas ayada ayaa mar ayuu Amir Khan saxaafadda la hadlayay oo barnaamij ka qayb galay dadweynaha ayuu sheegay in dalkan Hindiya diimihiisa iyo xaaladiisa amni aan la isku haleyn karin arrintaas ayada ah ayaa saxaafaddu aad u buunbuunisay Amir Khan lagu eedeeyay in uu dalka Hindiya iyo amnigiisa aflagaada u geystay arrintaas ayada ah waxaa ku dhaleeceeyay jilayaasha balwadka ka tirsan oo kamid yahay Anuub Bakhair oo ah ninka Soomaalida u taqaan lacag Rafina Tantan oo ahayd actrice hore Vivek Oberoi Shahrukh Khan Sin balse arrintaas ayada uu ka hadlay in xagga amniga aan la isku haleyn karin dalka Hindiya waxaa Amir Khan ku garab istaagay atooraha caanka ah Hrithik Roshan Shahrukh Khan iyo siyaasiga weyn ee Rahul Gandhi iyo Mamata Banerjee iyo Rajkumar Hirani iyo ninka la yiraahdo actorka caanka ee Kabir Khan iyo Farhan Khan sanadku markuu 2016 dacwadii lagu soo eedeeyay Amir Khan ay ahayd inuu aflagaada u geysto dowladda Hindiya waxa uu maxkamadda horteeda ka sheegay hadalka inuusan sidaa ula jeedin balse saxaafadda ay u bedeleen uu dalkiisa jecel yahay uuna joogayo oo uu kusii sugnaanayo daawadayaal barnaamijka aynu kaga falanqoonaynay actorka caanka ah ee Amir Khan ee kala socoteen saxafi films taariikhdiisii intaas ayaynu kusoo koobaynaa aad ayaad ugu mahadsantihiin qaabka habsamida leh aad uga socotaan barnaamijyada ka baxa saxafi films codsigiina ayaynu markasta ku soconaa iyo dhacdooyinka aynu markaa anagu u warhayno inaan idinla wadaagno daawadayaal saxafi films iyo shaqaalihiisa say u dhan yihiinba waxay idin leeyihiin sidaa iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo xiiso leh